horta arrintaas waa laga horreysay adig sharci xilka la wareegay kulley gudoomiyihii kumeel gaarka iga horreeyeyda waxyaalo uu maaragtay meel soo gaarsiiyey jira iyo gudiyadii arrintaas kuma degdegi doono waxaan rabnaa in maaragtay hadduu ilaahay yidhaahdo aniga oo taladeeda badinayo dhinac sharci dhinaca islaax anagoo ka fiirinayno wax maaragtay ummadda ku qanci karto yaan ku dhamayn doonaa haddii aan leedno go-aankaas keliya iskama lihi waxyaalihii aan maaragtay aan u aragno ama anigoo talada u badsanayno yaan ku dhamaan doonta laakiin hadda taas war cad oo haddaan kaa siin kara ma laha laakiin waxaan aad u jeclahay in arrintaas wanaag ku dhamaato haddii aan leedno insha allah kaasina wuxuu ahaa Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahim Aadan Caashuud horta arrintaas waa laga horreysay adig sharci xilka la wareegay kulley gudoomiyihii kumeel gaarka iga horreeyeyda waxyaalo uu maaragtay meel soo gaarsiiyey jira iyo gudiyadii arrintaas kuma degdegi doono waxaan rabnaa in maaragtay hadduu ilaahay yidhaahdo aniga oo taladeeda badinayo dhinac sharci dhinaca islaax anagoo ka fiirinayno wax maaragtay ummadda ku qanci karto yaan ku dhamayn doonaa haddii aan leedno go-aankaas keliya iskama lihi waxyaalihii aan maaragtay aan u aragno ama anigoo talada u badsanayno yaan ku dhamaan doonta laakiin hadda taas war cad oo haddaan kaa siin kara ma laha laakiin waxaan aad u jeclahay in arrintaas wanaag ku dhamaato haddii aan leedno insha allah kaasina wuxuu ahaa Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahim Aadan Caashuud horta arrintaas waa laga horreysay adig sharci xilka la wareegay kulley gudoomiyihii kumeel gaarka iga horreeyeyda waxyaalo uu maaragtay meel soo gaarsiiyey jira iyo gudiyadii arrintaas kuma degdegi doono waxaan rabnaa in maaragtay hadduu ilaahay yidhaahdo aniga oo taladeeda badinayo dhinac sharci dhinaca islaax anagoo ka fiirinayno wax maaragtay ummadda ku qanci karto yaan ku dhamayn doonaa haddii aan leedno go-aankaas keliya iskama lihi waxyaalihii aan maaragtay aan u aragno ama anigoo talada u badsanayno yaan ku dhamaan doonta laakiin hadda taas war cad oo haddaan kaa siin kara ma laha laakiin waxaan aad u jeclahay in arrintaas wanaag ku dhamaato haddii aan leedno insha allah kaasina wuxuu ahaa Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahim Aadan Caashuud horta arrintaas waa laga horreysay adig sharci xilka la wareegay kulley gudoomiyihii kumeel gaarka iga horreeyeyda waxyaalo uu maaragtay meel soo gaarsiiyey jira iyo gudiyadii arrintaas kuma degdegi doono waxaan rabnaa in maaragtay hadduu ilaahay yidhaahdo aniga oo taladeeda badinayo dhinac sharci dhinaca islaax anagoo ka fiirinayno wax maaragtay ummadda ku qanci karto yaan ku dhamayn doonaa haddii aan leedno go-aankaas keliya iskama lihi waxyaalihii aan maaragtay aan u aragno ama anigoo talada u badsanayno yaan ku dhamaan doonta laakiin hadda taas war cad oo haddaan kaa siin kara ma laha laakiin waxaan aad u jeclahay in arrintaas wanaag ku dhamaato haddii aan leedno insha allah kaasina wuxuu ahaa Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahim Aadan Caashuud horta arrintaas waa laga horreysay adig sharci xilka la wareegay kulley gudoomiyihii kumeel gaarka iga horreeyeyda waxyaalo uu maaragtay meel soo gaarsiiyey jira iyo gudiyadii arrintaas kuma degdegi doono waxaan rabnaa in maaragtay hadduu ilaahay yidhaahdo aniga oo taladeeda badinayo dhinac sharci dhinaca islaax anagoo ka fiirinayno wax maaragtay ummadda ku qanci karto yaan ku dhamayn doonaa haddii aan leedno go-aankaas keliya iskama lihi waxyaalihii aan maaragtay aan u aragno ama anigoo talada u badsanayno yaan ku dhamaan doonta laakiin hadda taas war cad oo haddaan kaa siin kara ma laha laakiin waxaan aad u jeclahay in arrintaas wanaag ku dhamaato haddii aan leedno insha allah kaasina wuxuu ahaa Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahim Aadan Caashuud horta arrintaas waa laga horreysay adig sharci xilka la wareegay kulley gudoomiyihii kumeel gaarka iga horreeyeyda waxyaalo uu maaragtay meel soo gaarsiiyey jira iyo gudiyadii arrintaas kuma degdegi doono waxaan rabnaa in maaragtay hadduu ilaahay yidhaahdo aniga oo taladeeda badinayo dhinac sharci dhinaca islaax anagoo ka fiirinayno wax maaragtay ummadda ku qanci karto yaan ku dhamayn doonaa haddii aan leedno go-aankaas keliya iskama lihi waxyaalihii aan maaragtay aan u aragno ama anigoo talada u badsanayno yaan ku dhamaan doonta laakiin hadda taas war cad oo haddaan kaa siin kara ma laha
laakiin waxaan